umahad celinayaa Cabdullaahi Haynoosh Ustaad Cabdiladiif Cabdullaahi Ibraahim Maxamed Abtida si qaas ah waxaan ugu mahad celinayaa walaalkay misna saaxiibkay Maxamed Mahad Faarax Shido oo runtii igu caawiyay maankiisa iyo waqtigiisa inta badan sidoo kalena igu caawiyay sidii aan ku soo saari lahaa buugan maanta waxaan ku suganahay marxalad aan in badan ku hameeyay inaan soo gaaro sidoo kale waxaan ku suganahay marxalad inaan dhameeyo magac cusub bilaabi doonana magac kale inaan dhameeyo magacii ahaa school sidoo kale aan bilaabi doono magac cusub la dhihi doono magaca jaamacad waxaana maanta aad iyo aad ugu faacsanahay inaan soo gaaro inaan rumeeyo mid kamid riyooyinkay aan in badan ku hameey jiray taasoo inaan qoro book sidoo kale boogan wuxuu u qoran yahay hab qisa ahaana waxaan ula jeedaa hab qisa ahaana sida ognahay Allah subhanahu wa ta'ala quraanka markuu inoo soo gudbinay wuxuu inoogu soo gudbiyay hab qisa ahaana oo micnaheedu ay tahay haduusan Allah subhanahu wa ta'ala hab qisa ahaana oo san quraanka noo soo gudbin lahayn ma aanan fahmin waxyaabaha ku dhacsan quraanka sida anoo ka soo shil qaadanaya yaambuugi waxaan ka dhigay hab qisa ahaana si qofka akhristaha uu fahmo una xiiseeyo akhristiisa buuga waxa ku matalay qisa qiyaali laba arday ama laba shakhsi la yiraahdo Mustaf sidoo kale ka dhacay basta nolosha iyo shakhsi mutacallim had iyo dhiirigelin doono shakhsiga kale ee ka dhacay nolosha qofka markuu Allah subhanahu wa ta'ala ku xirmo waa inuu asiga hormariyaa cidna wax kuma barayso waa inaad adiga ahaanta hormarisaa macalinka waa hagaha macalinka waa hormuudkaada kaliya wuxuu ku tusayaa wadada guushaada qof kale raba inuu hormariya waxna bata waa adiga ahaanta xaliya wuxuu leeyahay adiga hormari adiga wax baro wuu dhiirigelin doonaa Mustafne taladii xaliya ayuu qaadan doonaa sida ayuu wuxuu soo dhaqan gelin doonaa sirtii labaad isbuucu xiga ayuu xaliya Mustaf wuxuu sii doonaa sirtii saddexaad oo inuu leeyahay saaxiibo wanaagsan waxa leeyahay waxa tahay saaxiibka wuxuu yahay saaxiibka hadduu xun yahay adna waa xun tahay sidoo kale hadduu saaxiibka fiican yahayna adina waa fiican tahay sida ayuu buuga ku socon doonaa wuxuu xaliya Mustaf sii doonaa afar sir oo ka yani bedeli doonto hab nololeedka Mustaf sidoo kale markii afartaas sir uu soo dhaqan geliyo Mustaf iyo haddana wuxuu arkayaa inuu waxbarashada ku liito markaasuu wuxuu u imaanayaa xaliya oo wuxuu leeyahay niyo waa soo dhaqan geliyay intii sir ay siineysay laakiin wali waxaan dareemayaa dhanka waxbarashada iyo habka wax loo xigdiyo wali inaad ku liito Mustaf markaas wuxuu xaliya markaas wuxuu leeyahay markaan waxaan ku bilaabayaa duruus talenta oo sida aad wax u baran lahayd wuxuu sii doonaa afar sir talenta sirta ugu horeysa wuxuu u dhigay la socodka macalinka waa inaad macalinka la socotaa waxaa la yiraahdaa bilowda waxbarashada waa la socodka macalinka iyo dhageysiga sida ay waxa leeyahay waxba faalada buuga ma ku sii dheeraanayo qisada sida ay ku socon doontaa buugana waa arki doontaan insha Allah hadduu Ilaahay idmo waana kaasa buuga magac ahaan waxa uu dhigay adafida sida ogtahay sida mar hore idin sheegayba Mustaf waa dhibane waa nin ku dhiban waxbarashada laakiin uu dambeyntii wuxuu noqon doonaa nin magac iyo maamuus leh sidoo kale waalidiintiisa ay jecel yihiin maamulayaashiisana ay jecel yihiin